بسم الله وعشان سؤالات وسوكوب كوبي دونا سي aan waqtiga uga faa'iideysano insha Allah taw horeysa waxay sheegaysaa separate fadhi aan fadhiisto oo separate ka la weydiin ma jiro waxaan oran karnaa waa silic iyo darxumo qiil loo doonayo laba qof oo isqabo yiri waan isfuray sida nagu ogaado oo dawladda ay lacag saan nagu siiya maya qofka muslimka ay magayo inuu adduun gobonimadii iyo sharaftii islaamku uu lahaa muslimku markaa wuxuu ahaa dacwad aamusan oo dhaqan wanaagsan inay gaalada ku islaamiyaan waatay nabi maxamed iyo asxaabtiisu ummadda ku islaamin jireen maxaa la inagu islaamaa islaamkii baa baynu ceeb ku noqonaynaa markaynu heerkaa marayno waxaa la doonayaa khiyaamo in guri lagu dhiso khiyaamo in lacag lagu ururiyo khiyaamo in dad lagu cawaro khiyaamo in qoys lagu dumiyo taa ma haya qiilkeeda waa xaaraan un ku dah su-aasha labaad ninkaygiiba ay furay markhaatina may lahayn ma furid buu yidhi arrintaasi waa dacwad uduciya madda caleyh millada iyo markhaati waxay u baahan tahay in isaga wax la weydiiyo iyadiina ka jawaabto la yidhaahdo kii wax dafira dhaar kii wax sheeganayana markhaati waxyaabaha qaarkood sida wax loo sheego waa saddex siyood sida shareecada wax loo jawaabaa mide waxa weeyaan fatwo arrin qof qusaynaysa oo looga jawaabo sida kuwan oo kale midina waa nasiixa talo qofka la siiyo midina waxa weeye qadaa iyo garsoor waa laba dhinac marka uu khuseeyo wey waad ka furantii iyo kaba furid imika haddaan idhaahdo arrin qoys bay saamaynaysa qoys baa kala yaaci kara arrinta gunteediina lama gaadhin oo lama lafagurin oo lama dhuuxin marka waxaynu ku talinaynaa masaajidka aada joogto hadduu kan yahayna isaga kaalay culimo ku filan baa kuu jawaabayo oo labadiinaba idin dhegaysan hadduu meel kale yahayna culimada joogtawta su-aasha saddexaad waxa ay leedahay gabadh baa waxay leedahay xididkaygii ama xigaalkii ninkayga ayaanu isla il daranay hooyadii iyo hablihii waa la og yahay oo wax cusub maaha oo ma heshiiyaan kuwaas waa dab iyo dhagax way iska soo boodaan had iyo jeer dumarku mararka qaarkood baa la idhaahdaa ninkay jecel yihiin waxa weeye ka aan hooyana lahayn hablana aanay walaalahayn meerna way cidlay ka helaysaa kaasoo isagun bay ku qabowsanaysaa waaya marka inta faraha badan dabeecadaha dadku way sii kala adag yihiine dadku markay sii dabeecad adag yihiin xurguftaasina ay timaado hawsheeda iska leeda iyaguna waxay dareensan yihiin inankoodii ay dhaleen ay soo wateen inay iyadu ka dhex toostoy dhexda ku maratay ayay dareensan yihiin iyaduna ninkeedii ilaahay usoo diyaariya raaxada ay la qaadan lahayd inay ku kala dhex jiraan ayay iyana dareensanta waa kaaf iyo kala dheeri iyo isla yaab iyo isla diid culamaau tarbiya way ka warramaan culimada tarbiyadu markay ka warramayaan iyo ijtimaaciyiintu usrooyinku see wada noolanayaan waxay tilmaamaan dadka caa'iladda inaan isku guri la dejinin waxna la isugu darin duruuf adag oo keenta mooyaane haddaad kala warwareejin karto hooyo iyo hablaha dhinac deji ooridana dhinac deji weligoodba ha ku yidhaahdaan war isku dhari baanu noqonaynaa oo isku guri baanu noqonaynaa dhaqaaluhu haynoo kordhee maya unbaad leedahay maya isku gurina noqon maysaa isku dharina noqon maysaa raalli ahaada waxaa la yidhaahdaa zur qibban tasdad xubban marmar soo booqo kalgacal baa kuu kordhiyay dumarkiiyo maatidu waxay isjecel yihiin intaa aan waxba isugu jirin marse haddii wax la isugu daro waa kuwa isku qarxayoo halkan maxaad u masixi weyda iyo fujaanka xal baa la isku qabsanaya marka waxaynu kusoo ururinaynaa nin baa shalaytadani weydiinayay 24 saacadood ka hor ayaa wuxuu lahaa hooyada iyo xaaskii baan kala kari waayey waxaan go-aansaday inaan xaaska furo maadaama iyadoo carruur 7 aana iile markaa waxaan ku idhi ha furine dee iyadiina carruur bay ku leedo iyaguna way dayacmayaan hooyana raali geli xaaskana meel gooniya deji sidaa ku kala badbaadiyo taa waan kari karayaae mabaan ka fikirin bu inaan kala raraan kala dejiyo way isa saaran yihin war way isa saaran yihiina kala deji baan ku
marka kala dejintaa kuma baan fikirna khayr allaha ku siiye bal iminkaan kala furdaaminayaa buuli marka taladaasaynu iyadana siinaynaa waxaynu leenahay u sabir ninka hooyadii ninkan wanaagsaneed u hamootay gabadhay hooyadana heerkaa soo gaadhsiisay bal markaa u sabir oo wax sii oo si wanaagsan ula dhaqan mucaamalo wanaagsan alxuru yustacbadu bilixsaan baa laydhaha qofka xortaa samafal baa lagu adoonsadaa marka ninka xuquuqdu kugu leeyahay waxaa ka mid a inaad xigtadiisa xidhiidhiso u sabir intaad kari karto sekada dahabka way su-aasha afraad iyo qadarkeebuu dahabku ku sakoobaa 85 garaam markuu dahabku gaadho sanadna uu u soo wareego milkigaagana uu yahay kii aad isku qurxinaysayna aanu ahayn markaasay sekadu ku waajibaysa waa sida culamadu ay u badan yihiin meherkaygu su-aasha shanaad waxa weeye gabadhaasi ayna weydiinaysaa meherkaygu waxa uu ahaa 2,000 oo shilin beri hore ahay odaygii baan imika ka qaaday 2,000 oo gini arrinku muxuu noqonayaa meherku sidiisaba waa maal u dhaxeeya ninkiiyo gabadha ayaa iska leh marba labadoodu waa waxay ku dhammaystaan hadday tidhaahdo waan kaa saamaxay wuu saamaxmayaa ilaahay baaba u fasaxo yihi wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaad ka saamaxda ninkaaga ayaaba alla kacabsi u dhow hadday dhaskaan u samayso oy tidhaahdo intaasu haye kala badh tuuroo baaqigaysii way ansaxaysaa haddii iyaduba xagga kale ay u rogtoy tidhaahdo dee waan intaasu ahaaye ii kordhi hadday tidhaahdo u kordhiyo isna wuu ansixi saddexda siyoodba waa waracad hadday ka saamaxdo wuu ansixi hadday kala badh ka dhigtana wuu ansixi haddii isaguba uu siyaadiyana way ansixi marka labada gini waxaa muuqda 2,000 gini inay ka qaalisan yihiin baa muuqanaysa 2,000 shilin ee berigaa joogay maadaama isagu uu ku gartay oo uu ku siiyo uu ku haneeyey waxaagiiba ha ka yaraadee waa haniyay kuu tahay xalaalna way kuu tahay waana samafal uu isagu sameeyey ilaahay baana ka ajirsiinaya wallahu aclam su'aalaha kale inta aanan u